wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kane Axmed oo warbaahinta ugu waramay xafiiskiisa ayaa ku eedeeyay maamulka Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay ciidamo soo dhoobeen xadka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Puntland sidoo kale waxa uu xusay in aanay Soomaaliland marnaba wadin colaadaha yeeshee ay ka talinayso sidii nabad loogu wada noolaan lahaa Somaliland cidna maanta diyaar uma aha inay weerar ku qaado arinta imika jirta waxa weeye xaaladdu saaka halka ay maraysaa waxa weeye ilaa afar gobol oo Soomaaliya goboladeeda ka tirsan ayaa ciidamadii laga soo qaaday waxa la soo duldhigay ciidanka Somaliland madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ballanqaadkii uu sameeyay qoladan international community-ga waxa uu sheegay inaanu colaad wadin Somaliland doonaya inay wada hadal Somaliland ay doonayaan in ay arrimahooda iyagoo nabada ay ka wada hadlaan waxa uu wadamada jaarka iyo beesha caalamka la socodsiiyay in khasaaraha ka dhaca dagaal dhexmara Soomaaliland iyo Puntland ay dusha u ridanayso dawladda federaalka ee Soomaaliya marka ugu horeysa bulshada caalamka dalalka aan jaarka nahay dalka Djibouti dalka Ethiopia madaxweynaha Djibouti ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo guud ahaan labada dawladoodba dawladaha IGAD ee Geeska Afrika ururka midowga Afrika ururka midowga Yurub iyo dawladda Mareykanka intaba waxaan ku wargelinaynaa oo baaqa ku gaarsiinaynaa xaaladda colaadda ee maanta ka aloosan Soomaaliya iyo Somaliland dhexdooda Somaliland mas'uul kama ahay waxa ka mas'uula dawladda Soomaaliya wasiirka oo ka hadlaya sida aanay labada shacab ee Puntland iyo Somaliland isku dareen u wadaagin waxa uu yiri shalayta u dambeysay Jimcihii maamulka la yiraahdo Puntland magaalo kasta khudbadii Jimcaha laga akhriyay colaad iyo jihaad baa ayaa laga iclaaminay culimada iyo wadaadada Somaliland waxay khudbadii Jimcaha lagu akhriyay Ilaahay ka baqa cibaadaysta marka taa la sameeyo waa curfi xun oo ah labada ummadood in la colaysiyo in si isra loo colaysiyo mar aan weydiinay bal waxa uga meel yaala ciidamada uu sheegay in laga soo daadgureeyay magaalooyinka Puntland waxa uu ku jawaabay Somaliland de horta way ka warhaysaa in ciidankan meesha lagu soo dhoobay Somaliland ma faramadna difaaceeda iyo islaalinteeda iyo qarannimadeedana diyaar bay u tahay dhibtana iyo ma wadaan qolada waxa ka yimaadana way sugaysaa najaadan unaye oo Cable TV Hargeysa.